Waa maxay runtu? Runtu guud ahaan waxaa loola jeedaa inaad ku hadasho run. Islaam ahaan runta waa wax macno ballaaran oo waxaa soo gelaya ka run sheegidda camal kasta oo aad qabanayso. Qofkuna waxay hadalladiisu iyo camalkiisu toosayaan markii ay iswaafaqaan waxa uu ku hadlayo iyo waxa uu uurka ku haysta. Taa baana la yiraa run. Imaam Ghazali wuxuu sheegay 6 nooc oo ay runtu u kala qaybsanto: inaad run ku hadasho, inay niyadaadu run iyo daacad tahay, inay run kaa tahay guddoonka iyo go'aanka aad qaadanayso, inaad si run iyo daacadnimo ah aad u fuliso go'aankaas, inaad si run iyo daacad ah hawsha aad qabanayso u gudato, inay run iyo dhab ka ahaato diinta iyo iimaanka aad sheeganayso oo qowl iyo ficilba aad u muujiso. Waynu aragnaa inay runtu tahay aasaaska samaan falidda. Qofka aad run lowga ahayn wuxuu ku haysanayaa qalbigiisa nooc kasta oo xumaan ah. Qofkaasi runlowga ah wuxuu awood u yeelanayaa inuu gaaro samaan iyo khayr weliba si fudud oo aan dhib lahayn.